السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا كسو دوادا جانالka Caaqil Tech. Muuqaalkan maanta waxaan rabaa inaan isla sameyno wax loo yaqaano login page anagoo isticmaali doona marka Glassmorphism. Daawasho wanaagsan marka. Wareen waxaad soo furataa marka meeshaad ku qoran lahayd koodkaaga waxaad ka bedeshaa marka title-ka waxaadna ku soo xirataa linkigaaga CSS-ka kadib waxaad timaadaa marka badiga waxaad sameysaa class loo yaqaano Boxform waxaad kaloo dhex gelisaa marka another class kale ama div classkeedu yahay marka login car kadib waxaad sii dhex gelisaa ama waxaad ku sii dhex sameysaa div kale loo yaqaano content waxaan ku soo koobi gareynayaa marka labadan qoraal refresh hada page-kayga waad arki kartaa dirtaan waxaad sameysaa marka form wuxuu leeyahay marka class loo yaqaano form waxaad dhex gelisaa div oo loo yaqaano marka form group classkeeda waxaad soo gelisaa marka label oo email ah waxaad sameysaa oo kale input kaasoo typekiisu yahay marka email iyo placeholderkiisa okay divtaas marka form group la dhahay koobiyay waxaad ka dhigtaa marka password placeholderka typekiisna waxaad ka dhigtaa password waxaad ku dartaa marka bottomka waa login class waxaad u sameysaa loo yaqaano btn okay kadib waxaad soo gudubtaa marka css-ka marka waxaa inuu soo imported gareysan fontiga isticmaal lahayn waxaa keena Google Fonts waxaa kaloo sameysan marka universal oo astriga ahay inaan ka bixino marginska iyo waxyaabihii defaultiga ahay badi ayaa noo sameysan marka oo leh marka background colorki oo page-ka qaadan lahay iyo font family okay kadib waxaad wacdaa marka classkan intaan wacin classkani waxaan sameynayaa marka inaa contentiska ama xogta page-ka inaa center ka dhigo height 100 ka dhig width full ka dhig display flexible justify content center align item center waad aragtaa marka centerka ayay wada imaadeen kadib formkii ama classki usoo laabo marka positionkiisa relative ka dhig kadib waxaan isticmaalinaa wax loo yaqaano before marka waxaad ka dhigtaa contentiga none ama empty kadib waxaad sameysaa position absolute ah waxaad tiraahdaa marka leftiga -50 pixel okay waxaa kaloo sameysaa marka width kaasoo gaaraya marka 450 pixel height waxaad tiraahdaa 100% waaye oo formka intuu tago hala faacado waxaan soo koobi gareystaa marka background kaasoo ah linear gradient ah oo ka kooban marka 3 color z indexka waxaad tiraahdaa marka -1 kaasoo ka dhigaya marka kaarkii ama login kaarka hoostiisa geeyanaya waad aragtaa marka hadda qoraalada kore ayay soo mareen filter marka blurka waxaa ka dhigtaa 70 pixel kadib waxaad wacdaa marka classka loo yaqaano login card okay classkan markaad wacdid marka waxaan ku siinayaa marka ama si fudud waxaan isticmaali doonaa website kaasoo generate gareynaya marka wax loo yaqaano marka css classka waxaad tiraahdaa marka css.glass waxaad soo koobiyeysataa marka codekan okay markaan ku paste garey marka classkaaga waad aragtaa isla markuu isbedelay waxaad sameysaa marka padding oo kor iyo hoos gaaraya marka 3.5 rem labada dhinacna waxaa ka dhigtaa left iyo right-ka 2.5 rem okay waxaad kaloo wacdaa marka classkii ahaa marka qoraalka ku hayay content text alignment-giisa center ka dhig waad aragtaan waxaa kaloo sameysaa marka h3-ga ayaan rabaa inaan wax ka bedelo marka font weight-keeda waxaa ka dhigtaa bold okay waxaad u gudubtaa marka paragraph-ka oo qoraalka yar inoogu qornaay waxaad sameysaa marka margin top 8 pixel waxyar h3-ga ka soo sigto font weight-kiisa waxaa ka dhigtaa 300 waxaad u laabataa marka contentiga asagana waxaad ka sigsaa marka formka ka sigi oo 1.5 rem ka dhig okay bottomkiisa waxaad u laabataa marka login kaarka waxaan ka soo ilowna marka inaan width siiyo waxaad gelisaa 350 pixel
waxaad wacdaa marka kalaaskii loo yaqaanay form markaa wacdid waxaad tirahdaa waxyaabaha ku jiro display flex ha noqdaan flex directionkoodana column ka dhig waad aragtaa hadeertaan waxaad kaloo samaysaa marka gap 12 pixel ah si okay form groupka gal marka waxaad samaysaa marka display waxaad tirahdaa marka flex y flex directionkoodana waa column okay waxaan u malaynayaa marka formka sidaan u wacay inay khalad tahay kalaaska waa soo koobiyeysanaya marka kalaaskiisa okay waad aragtaa marka aad qaatay css-ka waxaad siisaa marka gap u dhaxeeyo oo gaaraya marka 6 pixel waxaad u gudubtaa marka inputka waxaad tirahdaa marka barin waxaa u baahanahay 0.75 rem ah waxaan kaloo u baahanaha marka border radius uu gaaraya marka 375 rem waxaad samaysaa marka border u samee okay backgroundka waxaad tirahdaa marka transparent waad aragtaan marka hadda sida u muuqdo waxaad u gudubtaa markaad dirtaan btn-ka waxaad tirahdaa barin oo 1 rem ah waxaad tirahdaa border radiuska none ka dhig background colorkiisa black ka dhig textiga waxaad ka dhigtaa like color white ah border radius u samee waxaad gaarsiisaa marka border radiuskiisa waa 6 pixel margin top waxaad tirahdaa 1.5 kasoo siko okay waad aragtaan sida u muuqdo hadeertaan waxaan bedelaynaa horta ugu horeyn waxa loo yaqaano meeshaas email ay ku qoranta password ayaan ka dhigaynaa inputkana waxaad ka saxdaa marka focuska la saaro outline-ka none ka dhig waxaa kaloo samaysiin backgroundka aad uu transparent u yahay marka waxyar ayaan adkeynayaa oo waxaa gaarsiinayaa 0.4 waxaad u laabataa marka html-kaaga levelka marka waxaad ka dhigtaa marka password ka dhig emailka ka bedel okay intaas ayuu ku dhameystiran yahay marka pagekeena maanta login page dhameystiran adigoo isticmaalaya marka class Monovism